أيها الأحبة، علماء waxay yidhaahdaan ishaaraat aad u tiro badan ayaa qur-aanka ku jira oo farsamo tilmaamaya. waxaana yidhaahdaan waa qofku inuu xirfad yeeshaa waa shaqadii nebiyadu ay sameeyeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari markuu daawuud tilmaamayay كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. داود وحوها مدان عنين نبي الله داود قعنتي سوي حك سدي مويان يعني الشقة مدحوين النمذا وحكم قادنين سقوا الدولة حكومة وخليفة مسلمين تبركة شوكتوا إلهي وحط الماء من النبي عليه الصلاة والسلام وحط الماء مياه waxa uu cuni jiray inaanay ahayn maksab uu dawlad ka qaato inuu cuni jiray gacantiisa wuxuu ku shaqaysto ayuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. xadiisku bukhaari ku yaala, imaamu muslim fi saxiixiisina wuxuu ku soo arooriyey kaana zakariya calayhi salaam annajaara. nabiyullaahi zakariyana inuu ahaa carpenter ama najaar looxaanta dadkan wax ka sameeya farsamo yaqaan isaguna ahaa. xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamayaa baa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa akala axadun طacaaman qatu khayran min an yaأkula min camali yaday. qof bini aadami ma cuno cunno ka fiican wuxuu gacantiisa ku shaqaystay buu nabigu yihi. waina nabiyullaahi daawuuda sala allahu alayhi waali wasalam kaana yaأkulu min camali yadi. markaasuu nabigu tacaqiibiyey qofka bini aadamkii ma cuna buu nabi maxamed leeyahay gacantiisa wuxuu ku xoogsaday waxaan ahayn oo wax ka khayr badan. nabiyullaahi daawuudna saasoo ahaa. idan ambiyadu iyagoo dadkii ilaahay dadka ka dhex doortaya oo haddii uun darajo ay jirto bini aadam uu ku faano darajada rusushiya ambiyada darajo ka sarraysa aanay jirin, ayaa haddana waxaa la tilmaamayaa inay mumaarasa inay samayn jireen camal yadawi iyo farsamo ah. dadkii u mudnaa shaqo gacmeed inay qaban jireen. qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi nuux farsamo yaqaan najaara inuu ahaa. ilaahay baaba ku yidhi wasnaci ilfulka biacyunina wa waxyina. samee baa la yidhi doonta waxay culamadu yidhahaan gacantiisu ku samaynaya. nabiyullaahi nuux doonta gacantii ku samaynayay baa la leeyahay. nabiyullaahi daawuud ilaahay qur-aanka markuu ka warramay wuxuu ku tilmaamayaa wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum. waxaanu barray baa ilaahay leeyahay sancata labuusin. sancadu waxay culimmadu yidhaahdaan ficilka waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo ka soo fulo oo la sameeyo bini aadam xayawaan jamaadaad wuxuu doonaa noqdo. ficlu riyaax waad odhan kartaa. camal markuu noqdona waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdaan waxa qasdiga loo sameeyo inta badane bini aadamka iyo wixii lamida. mararka qaarkoodna xayawaanka waa lagu isticmaali karaa bay yidhahdaan ka soo fula. sanca marka la yidhaahdana waxay yidhahdaan waa ficil kasii hooseeyo camal itqaan iyo qasdi uu la socdo bay yidhahdaan. waa camal uu la socdo maxay itqaan iyo qasdi. ilaahay wuxuu leeyahay wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum. waxaanu barray baa ilaahay leeyahay nabiyullaahi daawuud sancata labuus dharkii dagaal sida loo sameeyo ayaa la baray nabiyullaahi daawuud. wuxuu ku xoogsan jiray waxaa ka mid ah wuxuu samayn jiray duruucda dagaalka lagu galo. waxay yidhaahdaan culammadu nebi daawuud hortii duruucdii la xidhan jiray inta badan waxay bay dhahaan duruuc musafaxoo isku dhejisan bir isku wada rakiban ayay ahayd. nebi daawuud farsamadaa baa la baray inuu xalaqaad ka dhigo silsilada yaryar oo isku taxan inuu ka dhigo oo markaa flexibilityga tiro badanaya qofka dhaqdhaqaaqiisina uu tiro badanaya. mana aha meel waran iyo leeb iyo seef iyo waxa la isku tuuro oo dhammina ma mudayo. idan waa dirac jidhahaanna wax kaa celinaya. waqadir ilaahay waa ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waalanaa lahu alxadiida an icmal saabiqaatin
وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وألنا له الحديد بإلهي برتان وجه العنا كو دبتنا وحا ليلي أن اعمل أي اعمل صابغات واحد سماي سابا ليلي صابغ مدا قمسان واحد عدير وجد كودن قرين كرا وقدر في السرد جانجو نبا ليلي حلقات كيسة يعني سلسلة ظهر يريرا وكسم يسيني هاي جانجو وجد كنا هكو جانجو نادان هنا النقضان وحان ورمه يوحي كبحينين مقلينين جركينا السفضد والصمين كرا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إذن علماء حيكون المامان نبي الله داود وهافر سميقان تكنيشن سماية دروع دقالك من قلبك دقالك لغوك الله سماية ورانكو حط المام يا نبي الله موسى فرسمة حولها الله شقيين ويقاني بل وضيقي لك لي هشيس كم حكو لقل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 6 سنة هذا طبعا كان لكتنا دي واحد يقدر تيويل 6 سنة محو سمين يحول نقيا فرسمة حول نقا إنه يقام أنبياء بدن إلا حد نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم نبي بإلهي مصادر إلا يحول الراعي مو يعني أريب الراعي وياسي صحابة ويديسي وأدونا مرة عليه كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة حديث البخاري ابن ماجه ورينا يا مرة جينيا هنا بقول عليه الصلاة والسلام غير مكة أيام وحوغا شلي ماذا كقادن شري والراعي شري والنبي الشيخ عليه الصلاة والسلام تاسي وحي علماء إلى هدان مركها وحي تلماميسا أنبياء دايم بدنو كم دينا حرفض لهايين سيدا أما قرآن كاللغا دريميو أما حديث اللغا دريميو أما صحابة قاركود ابن عباس سيدو كسو ورينيا حاكم وحاو كنت المامية آدم إنو بيرليها نوح إنو نجارها زكريا إنو نجارها داود إنو حداد أما فرسميقان سمايا انقلب كاللغو دقالماها إدريس إنه خياطها وحتولي جري موسى يا نبي محمد إنه حوالها الراعي يقانين أما نبي الله محمد تجارته يقابك الله الشقيين إنه يقانين وحاصل نبوان نصوص أرورتي علماء التلمامان مركا لأيغو علماء المسلمين تيهورنا وحي علماء كنت المامان شيخ الله يدهده عبد الباسط بن يوسف الغريب أي كتاب قرية يدهده الطرفة في من نسب من العلماء إلى مهنة أو حرفة كتابك مقعه بحيي وحاوكور رميا فقهدي محدثين تي لون نسبيي شقدي أي كشقين شرين كن يشم بقولوا علماء كم يدبوا تلماميا وأفر بقولوا حرفضات كلا نوع لون نسبيي ومغشان ده إن بدن وارد العلماء للي القفال فقهاء الشافعية صدح كم إذا قفال له رجري القفال الكبير والقفال الصغير والقفال المستظهري قفال هو منك قفل هذا سمين شريوية قفله متكود كم إذا وحلا إلى هذا قفل يعني آدو يرى فرسمتي سحات كجاردي أو خطر مسمين شري مركا وحلو نسبة فرسمتي قفلك الباقلاني بان مغشا الباقلا بو يبنجري الجصاص باب مغشا مفسر كي من الجس نورد سمينجري جصاص بوها وحمغشان الغزالي الغزل درك سيدا اللوطل يا وحكا بيكتبي وحمغشان الأجري صاحب الشريعة أجرك بلوكيتيا يا وحكا وحلو لسو سمينجري إذن أفر بقول أو حرفة أو كلا نوعه كن يشم بقولوا عالم ومحدث فقيها ولون نسبي بو كتاب كقري حيث المام سامركا أنبياء هنا حرفض لهاي علماء المسلمين تلا يقانين حرفض لهان شرين إلا حد متكودو تلمامه عالم كان حرفض لهاينين وسلاطين تهرتو دا كدو اللوبي دونه سادر هذا قفك مسلم كاي إنه حرفض يشو أو يسوي اسكف اللادو حرف كاي يدوي أنا
caalam alislaami maantadan aynu joogno waxay yidhaahdaan 600 oo xirfad gacmeed oo UNESCO ka register garaysan Iran keligeed 450 bay leedahay bay yidhaahdaan 600 oo xirfad gacmeed waxaan gacmaha laga sameeyaa oo UNESCO ay register garaysan registerida Iran oo kaliya waxa laga helaa bay yidhaahdaan 450 ka mid ah kuwaasi waxaasoo dhammi waxay tilmaamayaan qofka muslimka ah inay tahay inuu xirfad yeesho uu arsaaqdiisa ku raadsado walidaalika baa caaisha markay nebiga sifaynaysay calayhi salaatu wasalaam waxay lahayd kaana yakhsifu naclah ويخيط ثوبه ويعمل في بيتي كما يعمل أحدكم في بيتي حديث إمام الترمذي أحمد بورينيان يا ابن حبان با waxay ku tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kabihiisa inuu tolan jiray waxay kaloo sheegaysaa maradiisana inuu tolan jiray Soomaaliga labadaba tolmoon baa la yiraahdaa carabtu laakiin laba eray oo kala nooc ay u leeyihiin mala kaba wala yeeli jiray hadaynu dhahnana waa sax kabtiisa inuu yeelan jiray maradiisana tolan jiray ee gurigiisana ka shaqayn jiray bay leedahay sida midkiin gurigiisa uga shaqeeyo waxay Aisha markaa tilmaamaysaa inaanu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka santaagaynin acmaasha xirfadda ee la qabto ee gacanta laga qabto inuu qaban jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaa xad uu ku sifeeyey ambiyadii oo dhami inay xoolo raaceen ayuha alaxiba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo meel fadhiya xadiidkii Kacb ibn Ujra waxaa soo maray baa la yidhi nin dhalinyaro ah oo jirkiisu dhisan iyo xooggan markaasay saxaabadii qaar ka mid yidhaahdeen law kaana hada fi sabiili illah waxaa si xoog iyo muruqi hadduu ahaan lahaa ilaahay dartii يعني جهادك هدوك قالي لها وحاس حوغا وفعنا الله يدوكله نبي عليه الصلاة والسلام حكوي لمكة إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا هدو صاب هاي عرورتي سيو يرير وهو قوة ربين وحوشيو فهو في سبيل الله بنبي تاسبه وإلهي جدك سكمت وحكالون نبي هدو لبا أبو oo gabgaboobay u soo baxay inuu xoojiyana fahuwa fi sabiilillah hadduu u soo baxay inuu nabigu yiri inuu naftiisa cifa u yeelo oo dhowro aanu cid baryin oo shaqaysto fahuwa fi sabiilillah ayuha alahibba warka mar rabo inaan badiyo warku wuxuu ku kooban yahay aadanuhu xirfad kama maarmo si uu xoogsado xirfadaha ummaddu leeyihiin inay tatwiiriyaan weeyaan in la horumariyo hadday fikraddu tahay inaad adigu wax samaysato farsamadaada isticmaashid qof dad ahaan markaynu ka fikirayno qof ahaan arsaaq xalaalaad xoogsan karaysa wadan ahaan markaynu ka fikirayno wuu horumari karaya dad ahaan markaynu ka fikirayno mujtamac jiro dunida iska dhiciyo waxiibiyaynu noqonaynaa ama dad yidhaahda raw material baan iibinaya war neefka xoole aynu iibinay mise ku jira waynu gowrici kari weyne waxbaynu ka sameyn kari weyne isagoo rooya baynu iibinaa isagoo sidiisa u qaydhin oo dhagortiisii wato oo qanjaaf war wax kale daaye xiidmihiisa dunida la kala iibsadaa Soomaalida gaaladu waxay cunanaya boolsaha waxa la yiraahdo waxa kale oo dhan waxa uu ku jira wax xiidmo waxyaabo badan oo dadka dhaqaatiirtu ay ku tasho wax xiidmo iyo wax la mid ah oo hadhow loogu talagalay inuu ku milmo idan neefka xoolaa ahi ee dhogor leh ee harag leh ee laf leh ee kan leh inagu isagoo duuduuba baynu iibsanaa haddii se la sarrifo inta laynaga siistay laba laabkeed iyo saddex laabkeed buu noqon lahaa dee neefka sarrifi karayno oo hilib ahaan u iibin karayno harag ahaan u iibin karayno dhogor ahaan u iibin karayno kan u iibin karayno ama inaan u iibinina aynu isticmaali garanayno saa daraaddeed dunidu raw material la iibiyo cidina kuma horumarto any bay yidhaahdaan waddan dunida horumaray industrial buu noqday waa waddan farsamo keenay farsamo isticmaalay waa waddan farsamo isticmaalay waddanada aan farsamada isticmaalay xataa waxay soo iibsadaan way ka xumaadaan iyagoo soodiyay tuuraan iyagoo soodiya way tuuraan ilaa farsamo kale looma haye waxaa laga yaabaa suuriyada la baabi'iyey inaad aragto gabadhidii kontonkii socon jirta weli socota
waayo bir kastoo ka jabta inta toornada la tagaaba dib loo soo qoraya magaarigii ku xidha lahaana halkuu taagan yahay dabeetana gaadhiguba fadhiisan maayo kii kontonkii baa la wataa kii lixdankii baa la wataa kii toddobaad mid waliba wuu shaqaynayaa innagana waxaa laga yaabaa model aan labadii kun ka dambaynin inaan u shaqaynaynin waayo cid farsamo u garanaysaa ma jirto cid wax soo saaraysaa ma jirto idan waa waxaagiyo khasaaro aad daadinayso waa waxaagiyo aad khasaaraynayso marka waxaan kusoo koobaya warkayga techniciannimadu iyo farsamo cilmigu applied inuu noqdo applied science baa la yidhaha inaanu noqonin theory un buugaga laga barto la xifdiyo oo calculus lagu xisaabiyo laga shaqeeyo inaan noqonay wax practical oo la fulin karo inuu noqdaa xirfadyahanku ku xidhan yahay xirfadyahana malaayiinayna u baahannahay waddankuna markaasuu dhismaya dadkuna shaqo helaya shaqo abuur bay odhanayaan la sameeyo waxbaba dadku garan maayo maxaad abuuri daan dadkuba shaqo garanaynin soo shaqadu u abuurmaysaa dhammaanteen ma shaqaale dowladeed baynu soo baxnaa xafiis fadhiya bise askar baynu wada noqonnaa ila shaqo kale waddankaba taale had xafiis fadhiisato iyo inaad askari noqoto waxaa dheer macallinka qalinka iyo waraaqda sita inaad noqoto wax kaloo dunida yaallo shaqay waddanka yaallaa ma jiro waxa yar ee farsamo ee yaallana ajanabi baa inoo haya anything maanta waddankeena lagu hayo oo uun farsamo yar u baahan qof ajanabiyaba haya ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo kenyaati ha noqdo ama bakistaani ha noqdo ama hindi ha noqdo ama suuriyaan ama yamani ama kan ilaa xad bay maraysaa طباخ ويمكن نقول يخف دبت كيمي حتى بريسكي كان قريوين. والسلام عليكم ورحمة الله.